taliyaha ciidanka badda Somaliland ayaa saaka tabobar furay cutubyo kamid ah ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland. tababarkan oo ay bixinayaan khubaro Swedish ah ayaa ka kooban 3 qaybood, iyadoo tababarka koowaad ee ciidamada badda la siin doono uu noqon doono badbaadada badda ama sidii ay badda wax uga badbaadin lahaayeen naftoodana uga badbaadin lahaayeen haddii dhibaato ay ku timaado inta ay ku dhex jiraan hawlgallada badweynta dhexdeeda. hanti fara badan lagu waayo inuu qofku yaqaano basic fire fighting, inuu dabka si yar oo fudud u baqtiin karo. laba, inuu qofkan isbadbaadin karo marka uu badda uu ku qarqoomo. survival at sea qofku waa inuu wax ka yaqaanaa oo badda isku badbaadin kara lacala haddii qofkan uu baddu la qarqoonto ama baddu marka ku shaygan uu saaran yahay uu badda kula qarqoomo. saddex, first aid-ka waa inuu wax ka yaqaanaa oo caafimaadka first aid-ka wax ka yaqaanaa oo qofkan la badbaadin kara isaguna isbadbaadin kara. first aid-ka isna waa inuu wax ka yaqaanaa. afar, waa inuu sidoo kale yaqaanaa personal behavior and social responsibility wax la yiraahdo oo dabeecadda qofkan ku dhaqmayo bini'aadamka kale oo la shaqeynayo iyo responsibilities ka saaran. qof walba oo badda dul maraya waa mas'uul, wuxuu mas'uul ka yahay meesha uu saaran yahay ama uu ka shaqeynayo. responsibilities ka saaran qofkaasi xaaladaha degdega markay maadaan responsibilities ka qofkaasi wajahayo ama qaabka uu wajahayo iyadana waa inuu wax ka yaqaano. tababarkani waxa uu tababarkii ugu horeeyay oo 3 tababar ah oo mashruuc la yiraahdo Swedish boat amba dooniyo ay maalgelisay dawladda Sweden oo insha Allah inoo iman doona hordhaca marka 2 tababar oo kala ku xigi doona kan waa kii ugu horeeyay waa STCW amba safety at sea ama badbaadada qofku inuu markuu badda uu joogo wixii uu baahan yahay ama badbaadadii uu baahan yahay inuu lahaado. 2 tababar oo kala inoogu xigi doona haddii la yiraahdo oo yahay technique ka galana nautical. labada tababar ee dambe waxa jeedin doona khubaro ka timid dawladda Sweden insha Allah oo madaxu yahay doonta sidii 3 doone cusub la keenay insha Allah la keeni doona waxay iska leeyihiin khibrad gooniya iyo gacan ku hayn gooniya. marka tababarkaas wuxuu ku xirnaan doonaa sidii ay cidda doonta fuulayso ay u yeelan lahayd khibradda goonida ah ee looga baahan yahay doontaasi. intaas kadibna waxaa hadalka qaatay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera oo iyagu sheegay inay had iyo jeer la barbar taagan yihiin ciidanka badda sidii ay hawlahooda qaran u gudan lahaayeen, waxayna soo dhaweeyeen tababarkan casriga ah ee la siinayo ciidamada badda Somaliland. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ciidamadeena ilaalada xeebaha ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan fadhigan Berbera inay in badan chance badan ka helaan EU Cup-ka. 2 jeer baynu guuleysanaynaa mar qarankeena guuleysanaynaa markaynu dadaalno oo aynu mar walba tababaradeena la siinayo iyo wax kastaba ha noqdo wixii naga soo gaadhay qalaba aynu kala hadno dawlad guuleysana qarankeena guuleysanaya ciidamada badda guuleysanaya. tababarkani maanta waa mid marka hore naftiina dhisaya, naftiina ayuu dhisayaa. markaad naftiina u dhiso ayaad maxaan ku idhaahdaa dadkiina badbaadinaysaan. aqoonta maanta halkan laydinku bari doonana aad sii gudbinaysaan. khabiirka tababarkan bixinayay ee u dhashay dalka Sweden inuu fursad wanaagsan u yahay tababarkani ciidamada badda ee Somaliland. waxaan u sheegay in dawladda Sweden ay ku caawisay ciidamada badda Somaliland 3 dooniyood oo casri ah. Today we'll start the safety training. It's a 2-week training and we look we have very good needs to be safe at sea. If something goes wrong, it could be terrible. So that's why we're spending the whole 2 weeks on the safety training. To support the implementation of the law, EU Cup has, together with the Somaliland Coast Guard, obtained a donation from Sweden. And there are 3 boats that will be donated. And they were, right now, they are on the road, so to say, on a big ship, planning to attend to BERBERA in the 10 or 15 of October. ugu dambeyntiina taliyaha guud ee ciidamada badda Somaliland ayaa hadalka lagu soo dhaweeyay. xubnood ba qayb qaadanaya waxay socon doontaa 2 wiig bay socon doontaa hadii la ka dhigo. waxaan jecelahay dhageysataan waa aqoonta aad qaataan doonyaha 3 xabo ee la siiyay elektrooniga bisha 10 imanaya bisha 10 imanaya
sidii aan ugu shaqayn lahayn doonyahaasi waxay naga bixin doonaan gaab badan oo naga bannaanaa shaqadeennu waa shaqo ballaaran waxaan rabaa inaan ilaalino wax alla wixii badda kontrabaan ahaa iyo wax alla wixii mataqaana sharcigan khilaafiya waxay ina tagi doonaan inaynu helno weelkii aynu ku ordi lahayn aynu ku dagaalami lahayn awal waxaynu mataqaana waxa uma hayno laakiin way noo bilaabatay وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاعد برشة تي في مقالة حبيت بربرة